kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa Abriil 12 waa 2020 waa mar kale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa maalinimo axad daawadayaal qaybtan waa qaybta labaad aan ku bilaabay marka aan ugu horeysiiyay iyadoo dhinaca sayniska tiknoolajiyadda iyo waliba isbacashada dunida iyo tartanka dunida aan laga harin inkastoo adduunka haatan tabartiisu isku mid noqotay kadib markii xanuunka faafaha daran uu ku habsaday caalamka haddana dalalka Russia iyo shirkadda la yiraahdo Elon Musk ee SpaceX loo yaqaano ayaa waxa ninka asaasay waxa la shirkadda wax ka asaasay Elon Musk waa nin ku dhashay dalka South Africa wadaanka South Africa kasoo jeeda laakiin waxa shirkaddan hadeerto qayb lixaad la kuleh Mareykanka dalal uu kamid yahay isla markaana waa shirkadda dhinaca cirbixinta kamida shirkadaha ugu waaweyn cilaaqaadkana la leh shirkadda NASA ayaa waxa ay isku cunuduuban yihiin shirkadda kale ee dalkaasi Russia ee iyaduna ka ganacsata arrimaha dhinaca dayax-gacmeedka cirbixinta iyo arrimaha la xiriira SpaceX ayaa waxa ay eedeyntii ugu weyneed kala kulantay madaxa guud ee dhinaca u qaabilsan tartamada iyo qalabka iyo qalab iibinta iyo dalxiiska shirkadda loo yaqaano Roscosmos ee dalkaasi Russia ugu weyn iyadoo dhinaca dayax-gacmeedka iyo cirbixinta u qaabilsan madaxiisa Dimitri Rogozin waxa uu bartiis Twitter-ka uu ku soo qoray in uu naawilayay in dalka Mareykanka iyo shirkadda SpaceX oo is huwan yihiin ayuu NASA ay kala tartamaan ama ay la soo shir yimaadaan ayuu la galo yimaadaan buu yiri tartan daacad ah oo xalaal laakiin wuxuu ku tilmaamay in ay ugu jiraan suxulduub in cunaqabataynta lagu nuuriyo lana saaro shirkadda dhinaca tiknoolajiyadda iyo arrimaha cirbixinta ee dalka Russia ee Roscosmos kadibna haddana ay suuqi jabiyeen oo ay suuqi qiimo jabin aad u xoogan ku sameeyeen waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin uu u gudbiyay xog ku saabsan in wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka oo heshay lacagtii ugu badneed abid ee gaashaandhigga oo uu ansixiyay xukunka madaxweyne Trump ama maamulka madaxweyne Trump sanadkii 2018 dhamaadkiisii oo gaaraysa lacag gaaraysa way 700 oo bilyan oo dollar ayuu sheegay in ay lacag xoogan oo kabisa ay shirkadaasi SpaceX ay ka heshay taasina ay heshay in ay jabiso markaasi tuuriyeynta gantaalaha iyo qalabka kale wuxuu yiri si aynu taa u helno waxaan idin hayaa ayuu xog ku saabsan in NASA iyo SpaceX ay heleen malaayiin dollar oo ay ka heleen the Pentagon ayuu yiri waaxda difaaca dalka Mareykanka si adraadeed waxaan madaxweynaha dalka Russia ka codsanaya inuu asaguna noo soo daayo dhaqaale aan ku kabno shirkadeena si aan ula tartanno tan ayuu yiri suuqana uga soo ceshano saamigaan ku lahayn ayuu hadii taa la waayo ayuu ka digay in shirkadda dalkaasi Russia aysan cid wax ka gada doonin isla markaana aysan soo jiida doonin dad doonaya inay hawada sare aadaan iyo sidoo kale dalalka kale ayaguna doonaya inay ku lug yeeshaan waxa loo yaqaano saldhigga hawada sare ee caalamiga ah International Space Station ISS waxay yiraahdeen tani waa mid kamid ah hanqaltaaga aadanaha uu doonayo dal walba inuu wakiil ku yeesho saldhigga sare ee hawada sare taasoo markaas laga cishiimeysanayo dhinaca internetka dayax-gacmeedada iyo waliba macluumaadka la xiriira arrimahaasi daawadayaasha qiimaha leh farikamo qodobada wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo waaweyn iyo warbixino kala duwan ay noo soo socdeen hatan Golan Heights buuraleyda Golan Heights oo dawladda Israa'iil ama Yahuuddu ay qabsatay dagaalkii kulula ee ku qaaday dalalka Carbeed sanadkii 1967 ayaa haatan markii ugu horeysay waxa la sheegay in ciid kamida ciidamo gurgura oo wada socda oo ay leeyihiin kooxda Xisbullah oo waliba qaybtooda Suuriya iyo ciidan military ah oo saraakiil sarsara ah oo Suuriyaana ay cagaha galiyeen hadal kulul oo markaasi carab badan ay bahaysay oo soo saaray afayeen ka tirsan ciidanka qabsadayaasha ee Yahuuda Avijay Adri ayuu wuxuu ku sheegay kuna soo bandhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal muujinaya ciidan si weyn u tababaran oo kooxa oo aad ugu soo dhawaaday isla markaana qayb ahaan qabsaday buuraleyda Golan Heights gaar ahaan inta ay ka faana fog yihiin ciidanka Yahuuda isagoo ka digay in dagaal lagu hoobto uu ka dhici karo halkaasi waxa uu ku eedeeyay in mid kamid ah taliska ciidamada dalkaasi wuxuu yiri Bashar al-Assad uu maamulo oo la yiraahdo General Ali Ahmed al-Assad uu wax ka maamulayo kooxdan isla markaana uu u sahlay in ay marka hore yimaadaan buuri degmada la yiraahdo Hajis Hashim oo uu sheegay inay marka oris halkaas ka soo qulquleen kadibna ay halkaas dhig ka sameysteen
haatan waxa uu sheegay in dagaal uu goor kasta isrogal tahay inuu halkaasi ka dhaco xisbullah ayaa indhaweyta waxay ku taamisay in aysan ogolaa doonin in la hareereeyo ayaga oo dhinac walba laga fadhiisto waxayna sheegeen tan iyo intii laga dilay mid ka mid ah xubnahooda saraakiisha warwareega ee ayagu u kala goosha dalalka ciraaq suuriya iyo lubnaan iskuna xidhaha danaha shiicada iyo danaha markaasi xisbullahi ay ku leedahay gobolka oo la odhan jiray ninkii la odhan jiray mashhuur zaydan oo bishii July ee sanadkii hore lagu dilay markaasi weerar dhinaca diyaaradaha oo ay qaadeen Yuhuuddu waxa ay sheegeen in ay xoojin doonaan joogitaanka iyo hareereynta buuraleyda Golan Heights. Vijay waxa uu sheegay in ciidankiisa hadirta ay ku jiraan diyaar garowga ugu wuxuuna ka digay inaysan ogolaa doonin in ciidaas ay ciidamo carbeed ay soo galaan isla markaana ay ku soo dhawaadaan si kastaba ha noqotee shucuubta dalalka Ciraaq dalka leeyahay Suuriya iyo dalka Lubnaan ayaa aad ugu eedeynaya hawlgallada ay sameeyaan shiicadu ama ciidamada shiicada ee faraha badan ee kooxaha kala duwan inaysan haba yaraatee wax tallaabo aysan ka qaadin Yuhuudda indhaweyto iyagoo markaas ku eedanaya in ay mar walba ku jeestaan kaliya dhinaca sunniyiinta ama ay dagaal kula jiraan Xasan Nasrallah hogaamiyaha ururka Xisbullah ayaa goor sii horeysay oo toddobaadkii hore ahayd maruu ka hadlayay qadiyaadka ku aadan xisbigiisa iyo waxyaalaha u qorshaysan iyo ay ku jirto in loo argudo oo la sii wado argudashada ku saabsan dilkii Qaasim Suleymani waxa uu sheegay inaysan Yuhuuddu nabadgeli doonin wargeyska afka dheer ee dalkaasi Yuhuudda ka soo baxay Haaretz leeyahay ayaa asaguna goor sii horeysay waxa uu sheegay in hogaamiyaasha dhinaca warwareynta u qaabilsan hay'adda sirdoonka ee dalkaasi Yuhuudda ee Mossad ay ka warhayaan dhaqdhaqaaq xooggan iyo cutubyo gaar ah oo loo diyaarinayo in furin cusub oo ku furanta Yuhuudda oo kaga furanta Golan Heights ay dhici karayso kuwaas ay sheegeen in xisbullah ay diyaarinayso ciidankaasi goortaasna wargeysigu waxa uu sheegay inuu soo xignayay saraakiil ku sugan ayuu yiri oo ah Yuhuud oo ku sugan ayuu yiri dalalka qaarkood carbeed kuwaas oo warwareynta ka soo diraya ayuu yiri halkaasi oo soo sheegay dhaqdhaqaaqyada ku saabsan talaabooyin noocaas oo kale oo dhici karaya Lubnaan inteena ka bixina waxa ay Lubnaan ku dhawaaqday in ay qabatay 25 tan oo markaas kumanaan kiilo noqonaya ay yiraahdeen oo xashiish ah oo maandooriye ah oo ku socday dal kamid ah dalalka qaaradda Afrika kaas oo laga dhoofinayay ay yiraahdeen dekada magaalada Beirut waxay sheegeen in arrintan ay kaga hortageen kadib markii ay yiraahdeen ay ogaadeen in xashiishkan uu yahay misal darra una diiwaan gashan yahay dalkaasi inuu kamid yahay waxyaalaha daroogada ay drugska ah oo ay tahay in wax laga qabto waxayna sheegeen in dal ay dideen magaciisa inay sheegaan oo Afrika ah xashiishkaas loo sii waaridayay oo la doonayay in loo bacgeeyo madaxa guud ee hay'adda la dagaalanka waxyaalaha maandooriyaasha ah ee halista badan ayaa waxa uu sheegay in uu ka hortageen isla markaana ay ka hawlgaleen kadib kolkii ay ogaadeen in xashiishkaasi Afrika loo sii waaridayo ayagoo sheegay in ay xidhxidheen dhammaan dadkii waday 8 gaari oo nooca xamuulka ah oo ku sii jeeday dekada Beirut ayaanu qabanay sidoo kalena waxaanu xidhnay dadkii wadayaasha ahaa waxaana haatan lagu raad jooga ayay yiraahdeen dadkii arrintaas ka mas'uulka ahaa waxay sheegeen in alaabahan loo ekaysiiyay seed la doonayo in beeraha lagu bacaramiyo taasoo dusha lagaga xayndaabay ay yiraahdeen ciid iyo waliba waxyaalo kale taasoo u muuqanaysay markaas waxaan laga shaki karaynin laakiin baaritaan dheer kadib ayay yiraahdeen waxaan ku ogaanay in xashiish meesha ka buuxo dalka Lubnaan waa dalka saddexaad ee maandooriyaha xashiishka soo saara waxaana ka horeeya dalalka Afghanistan oo ah dalka koobaad dalka Morocco iyaguna waa dalka saddexaad halka dagala socotaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan daawadayaal qodobada wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda gaanka dhan daawadayaal dalka Liibiya hogaamiyaha markaasi goni gosadka ee ka kan General Khalifa Haftar ayaa waxa uu maalintii toddobaad diidan yahay inuu sii daayo biyaha magaalada la yiraahdo Tripoli qayb ka mid ah ku dhawaad baa la yiri 2 milyan iyo badh ka mid ah dadka degan agagaarka magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi Liibiya ayaa biyo la'aan ah sida ay sheegayso hay'adda qaramada midoobay xafiiskeeda isku xidhka deeqaha adanimada oo sheegay in ay dadku ay u muuqdaan kuwa si walba loo baabiyay Liibiya 2 bilood ka hor ayuu Haftar wuxuu ku soo rogay cunaqabatayn dhinaca shidaalka ay iibinayeen isla markaana tumbooyinkii waaweynaa ee shidaalka gobolada qaarkood iyo ceelasha qaarkood ayaa la xiray kolkii uu sheegay lacagta inay ka faa'iideystaan wuxuu ku sifeeyay koox argagixiso ah oo ku sugan ama gabaad ka dhiganaysa ayuu magaalada caasimadda haatan waxa uu leeyahay Haftar waxay warbixintu sheegaysaa in Haftar uu diidan yahay in biyahaas la sii daayo isagoo doonaya in dawladda taagta daran haatan lagu hareereysan yahay in uu fashiliyo dadka wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada kooxda ay burburiyeen isla markaana ay gooyeen qasabadihii waaweynaa ee biyaha soo dhuuqi jiray kuwaas oo gaarsiin jiray magaalada caasimadda oo ka keeni jiray gobolada dariska la ah magaaladaasi gaar ahaan gobolka la yiraahdo Shawriif gobolka Shawriif la yiraahdo 350 kilomitir
ama 220 mayl u jira magaalada caasimadda Tripoli ayaa kamid ahaa goobaha markaasi u ahaa lafdhabarta biyaha ee dalka gaar ahaan biyaha laga cabo magaalada caasimadda ee leedahay Tripoli dhinaca bari magaalada ayaa la sheegay ilaa iyo maanta Isniintii hore ahayd in ay biyo la'aan xoogan ka taagan tahay dadka ayaa la arkayay iyagoo waraab ku jira isla markaana biyo dhaamin xoogan ku jira oo tuurta biyo ku soo sita in ka badan 2 milyan iyo 6 oo ay ku jiraan 600 oo kun oo caruur baa leeyahay waxay ku nool yihiin biyo la'aan kuwaas oo ku weegaarsan magaalada iyo agagaarkeeda ayuu sheegay Yacquub El Helo oo war qoraal uu soo saaray oo ah mid kamid ah madaxda dalkaasi gaar ahaan dawladda la aqoonsan yahay ee GNA haatan lagu hareeraysan yahay dhawaanna waxa soo baxay in cadaadiskii ugu badnaa dhinaca military uu soo food saaray dawladda GNA kadib markii dawladda Turkiga oo iyadu si weyn u taageeri jirtay la sheegay in laga cashiimeenayo ama laga xadidayo dhaqdhaqaaqa dhinaca badda ka socda iyo maraakiibta dagaalka iyo kuwa hubka u keena ee dalka Turkiga ka soo waarida dawladda dalka Turkiga ayaa la sheegay in ay ka shaqeynayso sidii cunaqabatayn hadii la saarayo ama la fulinayo cunaqabataynta hubka ee dalka la saaray dhinaca bariga iyo cirkana loo xiri lahaa maadaama dalalka Russia isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Masar ay bariga iyo cirka soo mariyaan taageerada ay siiyaan Haftar iyo ciidamadiisa ka diriraya ama ka soo duulaya deegaano ay kamid yihiin markaasi dhinaca bari ee dalkaasi gaar ahaan magaalada Benghazi oo kale daawadayaal intaynaan arrimaha ka bixin dalkaasi Libyana aan ku daro warbixintan ku saabsan oo laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed inay gaar u khusayso dad badan oo Soomaali ku jirto ayaa waxa la sheegay in ay ka carareen dalka Liibiya maalmihii u dambeeyay isla markaana ay kaga baxeen doonyo kadibna waxa la sheegay in doonyahaasi xusu xooga lagu soo celiyay kolkii ay gaareen xeebaha iyo biyaha caalamiga ah ee badda Mediterranean-ka oo dalalka reer Yurub ay soo celiyeen maraakiibtooda dagaalku hay'adda qaramada midoobay ayaa dalalka reer Yurub ku canaanatay in cawaaqib xumo kasta oo dhinaca aadanaha oo ka dhalata ama gaadha dadkaas iyo badqabkooda ay iyagu mas'uuliyadooda qaadayaan Stephen Dujarric oo khadka markaasi maqariyo muqaalka ku hayay shir jireed waa ninka afayeenka oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dalalka in 6 doomood oo sida 500 oo dad sharci darro ah oo markaasi magangeliya doona ay u baahan yihiin in la siiyo gabaad asagoo dalalka ugu baaqay in aysan ka faa'iideysan waxay ugu yeedheen xayiraadda xanuunka faafaha daran ee pandemic ama xanuunka markaasi sida weyn u faafaha daran ee caalamiga ah ee coronavirus hay'adda socdaalka adduunka ee International Organization for Immigration ayaa waxa ay IOM ayaa iyaduna waxay sheegtay in dadkaasi ay dhibaato aad u xoogan ay soo food saartay kadib markii dhowr maalmood iyagoo badda ku sii jiray haddana badda lagu soo celiyay waxayna ku tilmaantay inay taasi aadanimada ka baxsan tahay dadkan ayaa la sheegay inay galbeedka Afrika iyo bariga Afrika ka soo jeedaan dad Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan dadkaasi oo alaaba dhibaato xoogan marka hore lagu soo geystay baa leeyahay xabsiyada kala duwan ee maleeshiyaadka iyo dadka sida qabiilka u abaabulan ee dalka Liibiya ay maamulaan qaybta saddexaad wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal